dhammaantiin waxaan leeyahay arooriye suuban subax wanaagsan marti sharafta inoo jooga nagala soo qayb galay barnaamijkan maamulka iskuulada martideena kale oo ka kala socda meelaha kala duwan dhalinteena ardadeena kulligiina waxaan leeyahay kusoo dhawaada barnaamijkan أنا وحالي سعدي عبد الحكيم عبد الله معايا في الأوفيسر كوايبير صوماليا وحن ما أنت هالكن سكوي معني سكو كاي كاني وبرنامج بروجكت مجيء هي صومالي يوث امبلويمنت بروجكت صايب أما شغال أو أي تاي جديد يسوع عرضة دليرة عرضة برت خاصة حرفة سكيلز ككل دون dhalinyaradaas in loo sameeyo shaqo abuur ama loo sameeyo lagu caawiyo waxa ay ku sameeysan lahayn shaqo abuur. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ama bacda salaam martida sharafta leh meesha fadhiso quruxda loo fadhiyo waxaan iga mahad celinaynaa imaantankiina iyo mashruucan midda kale waxaan rabaa haddii ilaahay karaan noqdo magacaygu waa aadan wacdi xuseen laakiin macallimiin ku magac dheer ahay aniga oo ka socdo White Bear Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho mentor aan ahay mashruuca Safe Children iyo White Bear iska kaashanayaan dadka xirfad bartay ee ku shaqeysto tuul la'aan ama agab la'aan in hadan agab la siiyo la sii dhiirigeliyo waxaan rajaynayaa inta maanta farxadan ka dhacday in lagu taagnaado إنا ولا شقينه شقيستان نسوا بوقنا قفكي أو تبالي سجنا إن شاء الله توربحين تسوق جد بسان لوكيشن إنا أرجنا أم بوقنا. بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي هذا وفرح سنة هاي أرضي إذا عن صوته وبرنامج تلاقوا سينا وحكوا شقيسن لهين أم وحكوا قبسن لهين عفوا مقعي قبل أنا جوا فالحش محا عليرة أهنا جرمن كمعد كدقالها بالشدة إن وحبضنا عن رجال إن البرنامج كمان أنا تاجرنا إن شاء الله إله سبحانه وتعالى ونجارسيه إن ضل يردي وحبر الشدة هلين يرجلين أي هلان بقول كي بقول أي جانا وحن لدر دار ما يا إن أي وحي برتين أي وحقوق بصدان ما هتعلنا ده أسوء جدًا وتبير وحنقول ما هتعلنا ضدكي دقالها ما أنتقول بحياة يرجلين تأرضي السيا وحقبتك أنت على وجود دالي أي جن عادي هذا من هتسيهين waxaan kaloo aad iyo aad u rajaynayaa dadku wax bartay ayayna in insha Allah duulay raali ka noqday. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Salaan kadib waxaan ka socday agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir waaxda Tiifeedka anigoo ah kusimaha agaasimaha waaxda Tiifeedka waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo salaan كاتمد نجاسك وحبرشة وعن ربعنا إذن هم بليايو جوش أتجارتين دلالة نكو جارتين معلمين تي نيسو دلالي أو شو ذا إنكو بحيي أو تبارك إديسيي أيقونوا حاوي ومهسين أدين كنا ما أنت وحن أركع قلبا لين سينا لين قدون سينا أو أهتول أتكون شقيستين أما قلب كي حرف ده كل دون أضبرتين سيادو شقيستين تاس وحيتها جول وين قفكو هدي تول لسي شقادين الله بري قف كاس واجولست أسأل ربنا إنه شقادي سقبصده لكن معناه هذه قلب كنا عدم الأسكنكتو شقادين الله يعضو هذا الله يعض حنمر كربا إن الأمة اليو سيدو كلا نسويب يو سيف جدلرن أو أيونا شقادة في عنها هي رنتي ووح أدو قروح بدن ما أنت ماشى أنا وحنا قرشان نوجد تأتيفات كإن خر لاقعد تيفاتكو ومهم ضدك إني فرسمة يقانن حاجة فرسمين كضدكو أما إني قرفو إسكين إني برتان عادي يقول لي التردد لكن واحد مدهدنا إن كبر رجني إن أوجاني إن ما أنت يبقى أنت إن حرفضها أنا برنقاب كل لوجو شقيست أديت هاي الله ساركي أديت هاي توبيست أديت هاي بالكي شيء وحصل رن يوحي لما أديت هاي لما فرسمين كل الدول ومالها نلاشو كجرت dadku laakiin ma fahansana marka waa wax lagu farxo runtii waxaana rabaa inaan in kula dardaarmo sidii hore agaasimi u horeeyo u sheegaba inaad ilaashataan qalabka leedinsi qalabka inaad ilaashataan iyo wixii waqti ay ku baxay teema ay ku baxay lacag ay ku baxday
dadaa idiin dadaalay waxyaabo aadnaan haysana inta leediin doona leediin keeno waa leediin doonay waa leediin keeno intaas maxaa loo dadaalaya ummadda Soomaaliyeed loo dadaalay inay wax bartaan xirfad sameeyaan adinkuna hadda waa ku jirtaan qorshe badanna waa muuqda sidaan hadda arkayay oo shaqo gelina ciwaanka halku dhigana meel shaqo gal waayo iska shaqo gal waayo farsamo lagu baray shaqo gal waxaan rabaa markiina u mahad celiyo dhammaan macaahidda kala duwan iyo maamulayaasha iyo agaasimayaasha kala duwan ee macaahidda ka socda waxaa TVET ka wada shaqeeya dhammaan inaan u mahad celiyo annagoo daan agaasinka waxbarashadana waxaan qayb ka nahay TVET ka insha Allah dil aadmo inaan garab istaagno warahmatullaahi wabarakaatuh dhammaan dadweynaha meesha fadhiyaan mudanayaal marwooyin waan islaamay horta waxaan ugu mahad celiyay ma naqaano dadka oo soo aas-aasay iyo macadiyada waxna bareen waxaan leenahay waa mahadsantihiin maamulka macadka dhaqaalaha bulshada iyo maamulada oo aas-aaska ishag hay'adda waxaan ugu mahad celinayaa ilaahay khayr badan han isiyo waxaad dareentaan niyadda oo dadka dhalinyarada ah waxaan ilaahay waa mahadsantihiin intaan in ka badanna waa rajaynaynaa waxaa ka baranay macadka maadooyin badan ay ka mid yihiin cunnada harqaanka farshaxanka intaan in ka badanna waa ka rajaynaynaa in la guddoonsiiyo intaan la guddoonsiiyana insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan ku shaqaysano anagana waxaan laga rabaa inaan dadka niyada aanan ka jibin oo aan dadaalno oo wixiina la siiyay wax ku qabsano oo maxay ahayd sidii dadka qaarkood oo kale wax markii la guddoonsiiyo oo ay suuqa sii geeyaan oo kale inaan sameeynin waxayna wax ku qabsano si dadka ay niyad ugu dhisanto maadaama la dareemay وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan maamulka White Bear iyo maamulada macaadiyada labada macaadi halkan ardayda ugu soo qalin jibisay iyo ardayda oo maanta halkan lagu guddoonsiiyay qalab agab ay ku shaqeystaan waadin salaamaya dhamaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta diinta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waxaan halkan ugu mahad celinayaa White Bear oo garatay ardayda ka qalin jibiyay xirfadaha gacanta halkan maanta waxaan ula guddoonsiiyay waxay tahay ardayda bartay farsamada mobilada iyo kuwa bartay korontada intaba waa farsamo gacan oo looga baahan yahay maanta bulshada aad baan looga baahi qabaa runtii ujeedina maanta waxa ugu jeedaa farxad aad u tiro badan oo ma dadaan filayninba inay maanta halkan waxa maanta ay ku qaateen oo agab ay ku shaqeysanayaan inaysan helaynin balse taas waxa mahad celintaas leh maamulka iskuulada adinka wax ka soo barateen iyo White Bear oo gartay gaajada idin hay oo baahida u qabtiin agab ku shaqeysataan ayaga ayaa mahad celintaas iskale waxaan rajaynayaa 10,000 arday ee la sheegayo ayagoo dhan inay mutaqaanaa bulshada iyo dhaqdhaqaaqa ay ku sameeyaan iyo sida ay ugu shaqgalaan in laga dareemo insha Allah halkaasaan ugu baxayaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودوهاي وريه سيدو وشيغاي وا سو داهاي وا رun taasna waxaan ka bixinaa apologize cudur daarkaygu waa howlaha iska badnaa waxaan aad ugu faraxsanahay maanta qalin jabintan aan ka soo qayb galay oo la igu casuumay waxay ahayd inaan subaxii hore imaado furitaanka aan ka soo qayb galay ahayd qorshaha waa suurtagali waayay howlaha badnaa oo barnaamijyo kale oo iyagana meel aan ka casuunayaan ku hormaray meesha ay soo daahisay marka alxamdulillah waa ku faraxsanahay dhalinyaro Soomaaliyeed maanta qalin jabintooda aan ka soo qayb galay nasiib wanaag xiritaanka hadaan ku soo gaaray ma sha Allah tabarakallah wasaaradda haweenka anoo hadda ka socdo wasaaradda haweenka azumadan waxay noo tahay wax weyn farxad aad u weyn mar walba waxaan dhiirigelinaa dhalinyarada Soomaaliyeed mar alla markay ama wax tababar loo furaayo ama qalin jabin loo xiraayo ama furitaan ama xiritaan ka qayb galno waxay ka dhigan tahay horumarkii dalka hooyooyinkii soo tabcay oo juhdiga galiyay dhalinyaradan wax soo baray soo dhalay koriyay wax baray maanta natiijadii bilowga ahayd especially farsamada gacanta
ووح مهم مدنا وحو isku dayaa ama inuu dhaqso reerka soo hoobo oo barto xirfad oo ku shaqeeyo oo waalidkii soo dhalay oo soo koriyay in ay soo gaaraan ama ayaga laftigooda isdabaraan wax tarna sameeyaan tiknoolajiyada hadda aad maanta farsamadeeda aad ka qalin jabinaysiin waa wax aad muhiim u ah oo loo baahan yahay bulshada Soomaaliyeed doorkii aad ku lahaydeen waxay leedinka sugaayay natiijadeedii maanta ayaan loo joogaa hadduu Ilaahay yiraahdo dadkii wax idin soo barayna hay'adda Waybir dadaalkii badnaay ay sameysay maanta waa u jeednaa hay'ado kala badan oo wadanka ka jira qof walba meel uu wax ka qabtaaye hay'adan wax ay qabatay waa wax la taaban karo dhalinyaro Soomaaliyeed gabdho iyo wiilal intaas wax soo baranayay oo maanta alxamdulillah inay dalkii wax u qabtaan wax soo kordhiyaan loo tababaray hay'adda waa ku amaanan tahay inay qalab idin guddoonsiisay qalabkii lagu shaqeyn lahaa hay'adda waldan ayaa idin leeyahay kuwa kale inay sidaan oo kale wax qabadkii ay qabteen iyo wixii uu qofku ku shaqeysan lahaa markii la siiyo waa complete waaye waa wixii la dhameystiray waxbarashadii oo la dhameystiray qofka hadii inta la yiraahdo wax waa ku barnay iska baxay ridda ka bax qalabkii uu sagan karin mararka qaarkood hadii qalabkiina loo gadayo loo diyaariyo la siiyay waa howlgal kaliya shaqadaada qabso marka insha Allah shaqa galid waaye insha Allah idinkan waxaan rajaynayaa shaqada siday ahayd inaad uga soo dhalaashaan insha Allah hay'adana waa ku guubaabinayaa guuleysta wad guuleysateen guuleysta dhalinyarada adinkana maanta dardaaran waxa idin kula dardaarmayaa wixii la idin soo baray inaadan ka caajisin mararka qaarkood aqabadaha iska jiro adoo shaqeeyay lacag la'aan aad dhici karto wixii aad baratay ayaa faa'iido ku ah xataa voluntary inaad ku shaqeysid lacag la'aan ku shaqeysid waa iska imaanaysaa lacag adduunkan waa la helaa waa la waayaa laakiin xirfadda la iskama helo xirfadda gifti maaha waa wax la barto la dadaal la geliyo marka dadaalkii aad geliseen Ilaahay idinku guuleeyo insha Allah tacabkiina Allah ka dhigo tacab oo faa'iido leh oo lagu guuleystay biidnillaahi kariim haddana insha Allah shirkii waa xafladii waa noo soo xiraaya